يلا يسدعي ما يسحيني يسدعي ولا يلا استوك جفا وكسكري وقفل وجهي يسدعي يسدعي ولا يلا قفل من الشرع قريبا كلي من شجع ولا يلا يسدعي منطق سوق هذا دقل يقو حيران عيدا قل كانوا كو حيران قفل كل الله ديقي قانا صدح يا برافري وسوقراني صدحي ولا يلا كليني صدحي ولا يلا صدحي فمركيكي aniga run ahaantii waxaan u maleynayaa inaan haysto coronavirus oo u maleynayaa sida iska arkay symptomyaasha iyo waxyaalaha oo la sheegaya isku arkay and waxaan rabaa inaan caadi ka dhigo dadka inay ka hadlaan I think anaga Soomaali markaan ahay markay dhibaatana haysato waa ka xishoona inay ceeb tahay ahaan waa kharkharina dadka uma sheegno ama sheekada waa yeereen ahaan fahantay aniga wuxuu ugu bilowday muddo hadda laga joogo 8 maalin 14 bisha xuduudda Sweden aan adeeg u doontay shakiga aan qabo waxaan u maleynayaa dukaanka adeega ee Sweden inaan ka soo qaaday cudurkan habeennimadii Sabtida oo 14 bisha oo 15 Axad ahayd oo soo dhacay calaamadahan isku arka waxaa ka mid ah qandho lafa xanuun كدرسيو كديق دايرو وكاتا إن كان قعدي أبالي دوايك القعيل كقعدة شدد اللذيو وحيرتوه سمر كدرسيو كديق دايرو وكاتا إن كان قعدي so I want ina laga dhigo wax oo caadi laga hadli karo wax weyn ma ahna adduunyada hada geeska ay ku dhacaysa coronavirus ma fahanteen so it's not wax oo you know yeeray kar ma ahna adduunyada waxa la hay waa epidemic right pandemic waa la hay I don't know Somali say lagu dhahayo adduunyada geeska dhibaatada haysta qof kasta oo haysta anaga kaligeena ma ahano so aniga waxa rabaa meesha inuu soo fadhiisto inaan sheego ina oo wax laga xishoodo aheenin wax oo la khariyo maantay it's not ceeb waa ceeb lagu dhiwaya waa cudur oo jiro geeska adduunyada maanta ka jira so aniga horta sheekadeeda maanta rabaa inaan sheego kadib waxyaalaha kale insha Allah waa arkiina sida uu sameeyo so one of the reason is neefta xogaa makasiisidoo dhibaatayniisa ka jirto cudurkan cudur yar waa madhooy ma ahana cudur oo si fudud loo qaadanayo ma aho okay so hada xogaa neefta igu dhigwaysa arkaysiin it's not a big deal I'm just trying in a deep breath in qaato waxaan dhahay inaan gooy maro because I really want inaa ogaatiin dhamaantiina sida ay xalka maanta tahay oo aniga agteeda ka tahay just personal qof kasta ma ahano anyway laakiin maalinta isniinta ayaa isdahay waxiriis qanaa soo qabatay also waxa isku arkay waxiriis ina qunfac weyn aheenin xabadka mi xanuuneenin waxaas dhammaanaya qunfac yariis oo ilaahay iyo temperature-kayga hataa meel dheer ma gaarin dhaxum i qabaneen I think khamiista ma ahayd waxa maleena khamiista isku arkay khamiista ayaa waxa isku arkay in oo barfuunkiim isu carfooyo cuntadiim isu carfooyso dhadhankeedu wuu yaraaday so carfitaanka waxna ma carfinoy ma hano wax waa carfina laakiinse waa daciif jimcadii video arkay oo la dhahayo qof Snapchat ka soo galiyay arano yaa soo galiyay qof nin oo hadlay oo dhahayo hadda waxa ogaanay hadda qofka wax uri karin waxna dhami karin waa coronavirus symptomyaasha kamid tahay aan naxtin ku ina telefoonkii qabsaday la carar walaakiin qolkiisu aaday dig oo dhahay hada la fiir dhageyso waxa la dhahay hada la uri karin waxna la dhami karin qofka coronavirus oo haysta so aniga markaas ay isdahay fartuunay sheekada way xumaatay abaaya macaanay fahantay so
from there on I told him, listen, I think ani coronavirus I haysta, so iska ogaada leeno qof kasta oo sheegay aniga. Yeah, so aniga hadda waxaa i dhibta neefta hadda ahaan waa isku arkay I am hand, especially haweenkii. I don't know why haweenkii saas u tahay, but haweenkii saas dhahaa. So I try to breathe in nicely. Still way ugu dhugaysaa ma ahano neefta, ma ahanan ma neefsa kari ma ahano, laakiinse waxaa dareemay that I have to inaa qaato hawo weyn inaa qaato, ma fahantay? And maskaxdeydana sometimes waxaa arkay inaa istaaga waaye oo neefteeda soo celiyo. You know what I'm saying? So it's not ma ahano neefsa kari ma ahano ama neefta igu dhigaysa ma ahano, ba waqti ahaan hadaa oo wax badan socdo sometimes hadaa soconay hataa waxaa arkay inaa istaaga waaye waxna sameynin oo neefteeda chance ay siiyaa just inay xoogaa system kusoo noqoto kadib caadi asku noqdaa. 14 bisha xuduudda Sweden adeeg u doontay. shakiga aan qabo waxaan u maleynayaa dukaanka adeega ee Sweden inaan ka soo qaaday cudurkan habeennimadii Sabtida oo 14 bisha oo 15 Axad ahayd oo soo dhacay. calaamadahan isku arka waxaa ka mid ah qandho, lafa xanuun, lalabo, madax xanuun siyaada ah, dhabarka oo xanuunaya, jirka dhamo oo xanuunaya, sida adiga xumad qarqariyo, daawooyin isticmaalkaniini xanuun baabiyaan isticmaalay paracetamol. ilaahay xamdigiis qandhadii waa iga jabi weysay runtii, oo xanuun siyaadahan isku arkay, xanuunkii marba uu sii siyaaday maalinta ka dambeysa, ilaa markii dambe aan wacay leega vaktaha dhakhtarka degdega ah. markaan wacay waxay igu dhaheen lambar special ahoo corona number la yidhaahay isiiyeen, isagiaan wacay, baawur bay ii soo direen, waa i baareen, sidaasaa positiveka liiga helay. walaalayaal ii soo duceeyo, ma ii seexiyaan, ii soo duceeyo walaalayaal. istabka jifa وكسكرية وقفل وجهي صدري صدري والله قفل من الشرع قريبا كلي من شجرة يا صدري منطق سوق هذا دقلي وحران عيدا قل كانوا وحران قفل كل الله dhiigayga qaadan saddex yaa farafar igu soo galaanay soo tacay walaalayaalo gurigeynii soo tacay walaalayaalo soo tacay famirkayga. maalinta ka dambeyso waa kasii fiicanahay 100%. waxaan sida xanuunka caadiga waaye oo waxaan lahaa asiga qof walba ibn aadan uu ku dhici karaa, qof walba xanuunsan karo. wax dhib leh oo wax dhib leh oo maanta qof khaas u ah ma jirabo. ninkii ilaahay u qorantahay dhimanayna waa dhimanaa, waxa waaye qof loogu talagalay waqtigiisa inuu dhaafo ma jiro. muhiimadda waxay tahay qofka cudurka inuu dareemi karo, waxay inaad dareemi kartid iyo meeshuu kaaga yimaada inaad dareemi kartid. ilaahay aqliga ku siiyey alxamdulillah. sorry qofka inuu dareemi karaa rabaa bas wixii haayo iyo meesha xanuunayso inuu dareemi karo. maalinta ugu horeysa asku arkay waxay ahayd jimciyada la soo dhaafay, jimciyadii ahayd jimka ka imaaday, jimaan jiray dabcan saa ogtiin bay meel jima aadaa, jimkaan jiro. maalinta caadi aan soo almindaya horta codkayga maqlusin amiin yaa rabbi, waa fiicnaanaa insha allah. codkayga maqashin